xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa 24 bishii Oktoobar sanadkii 2020 duqa degmada Gaalkacyo u doortay mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan kadib doorasho ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. haddaba duqa degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan muddada uu xilka haya ee 5 sano ah maxaa u qabsoomay? dhismaha xarumaha cusub ee dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo, dayactirka xaruntii hore ee dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo, dhismaha haykalka maamul ee dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo, naqshadaynta iyo shaqaynta dhulalka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, dhismaha 100 guri ee xalka waara, dhismaha suuqa xoolaha ee magaalada Gaalkacyo, dhismaha 2 wado oo laami ah astaan golol iyo astaan hobyo, dhismaha 8 wado oo jay ah, furitaanka 112 wado kuwa oo aan hanaan sharci ah ku xirnayn isla markaana dadku ay si sharci darro ah qaarkood ku dhisteen, dhismaha goobta lagu ururiyo qashinka magaalada Gaalkacyo, dhismaha saldhigga cusub ee degmada Gaalkacyo xarunta dowlad goboleedka Galmudug, dhismaha xarunta caafimaadka ee magaalada Gaalkacyo, qaybaha waxbarashada duqa degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan 5 sano ee uu hogaaminayo dowladda hoose waxbarashada maxaa uga qabsoomay? dhismaha dugsiga gabdhaha, dhismaha dugsiga dadka baahiyaha gaarka ah qaba, dhismaha dugsiga Laasa Cadale, dhismaha xarunta farsamada gacanta ee Professor Cadow, dhismaha xarunta bisha cas ee magaalada Gaalkacyo, qaybaha biyaha, caafimaadka iyo deegaamaynta duqa degmada maxaa uga qabsoomay 5 sano? dhismaha xarunta caafimaadka magaalada Gaalkacyo, dib u howlgelinta xarunta caafimaadka xaafadda howlwadaag ee magaalada Gaalkacyo, qodista 6 ceel biyood, ka qayb qaadashada ballaarinta isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo, tayeenta beeralayda iyo yaglilidda beera bulshada ay leedahay gaar ahaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Gaalkacyo, bixinta iyo diyaarinta dhul loogu talagalay in ay degaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Gaalkacyo. dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo duqa degmada markii uu yimid ma lahayd qalab loogu shaqeeyo dowladda hoose isla markaana qayb ka ah horumarka degmada Gaalkacyo. ma jirin qalab uu kala wareegay mas'uulkii ka horeeyay, ha yeeshee waxa uu duqa ku guuleystay keenista qalab looga shaqeeyo magaalada Gaalkacyo, qaybaha qalabka iyo adeegyada, soo iibinta qalabka dhismaha oo dowladdu ay leedahay sida 2 cagaf, grader iyo welcher iyo 1 iska roge, kuwaasi oo dhammaan ay leedahay dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo. tayeynta adeegyada caamka ah ee dowladda hoose ee degmada ay bixiso, qaybaha iftiiminta iyo tamarta, dayactirka 228 soolar oo horay u jiray, rakibidda 42 soolar oo cusub kuwa oo laga hirgeliyay deegaanada Laanfare, Saaxa Wanaag, Bitaale iyo Taaroge, iftiiminta wadada jaamacadda Gaalkacyo University, saaritaan solar systemka isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo iyo xarumaha caafimaadka ee magaalada Gaalkacyo, bilicda iyo qurxinta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka, qurxinta iyo dhireynta jardiimada magaalada Gaalkacyo, qurxinta suuqa Gaalkacyo iyo digidda interlock kaasi oo qayb weyn ka qaatay quruxda iyo bilicda magaalada Gaalkacyo.
cayaaraha iyo dhalinyarada duqa dhaxda ayuu u xirtay dhismaha garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo. Amniga iyo isdhexgalka bulshada, sugidda amniga magaalada iyo yareynta dambiyada, xoojinta iyo isdhexgalka iskaashiga iyo wada shaqaynta labada maamul ee Galmudug iyo Puntland, xakamaynta colaadaha qabaa'ilada iyo ka hortagidda in aanooyinka miyiga ay ku soo faafaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Haddaba duqa degmada Gaalkacyo 5 sano waxa uu qabsoomay waxyaabo aad u fara badan kadib dadaal xoogan oo dhaxda uu xirtay gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Xasan. waxaana duqa degmada la doortay 24 bishii 10aad sanadkii 2020 kadib doorasho ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka. qaybaha bulshada iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo ayaa duqa degmada Gaalkacyo ku tilmaamay inuu yahay hogaamiye ay u baahnayd Gaalkacyo isla markaana door weyn ka qaatay hanaanka horumarka magaalada Gaalkacyo iyo isdhexgalka bulshada gobolka. kadib dadaallo mas'uuliyiinta maamulada gobolka iyo degmada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland ay sameeyeen.